أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر إلى آخر الآية. سورة داسودان أيها إلهي سبحانه وتعالى كتل مامي ليلة القدر وهبين آد ياد فضل بدن ليلة دان وليلة أمني يا السلام يا النبت قليو ليلة النبت قليو واي وح مرت ربشاه يوح شداه يوح دعمله هبين كاس وهبين أمان يهبين نبت قليو واي وحكلوا لي هذا فضائش هذا وحكلوا كم ذا والله ربا قفكم إنه كد ذاله إنه هبين كان ليلة القدر وعمل في عنا وناكسن وسمايه وحل الوهبين كلا تشانجويو قفك مصير كيسية مستقبل كيسة قفك المركز اللي تشانجويو واي أو مارتي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسة كريم كواك كورنا هي إنا أنزلناه في ليلة مباركة يفرق فيها كل أمر حكيم وحلقوا قرن كرا إن عاول ليلة القدر تاي إنك لا صبح ليلة القدر جاء قرح المركز صباح هذا قرح هذا سمالهن وحليا الشعاع يفلار ملهن والنظيف واي سببته وحوي عاود أنا يا ملائكتي كل حجرت دولك ملائكتي بالله دي مارت وحوي هي مارت أجزامتي دي لطيف كها أي قرنها يوا مركب ملا مارت ملهن بالله هذا سلوك كلا وحلي هذا هبين كليلة القدر جا ضيحة وحوي وحو صباحها سوى أمودد ماركتي باقولي تبكي سوكلاته sida maaragtay xeero la kala jabiyo kaleeto jabkeeda soo baxa oo waliba nadiif ah waay dhammaan waxa aanu sheegayno waa xadiistii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa kale la yiraahdaa habeenka leelatul qadriga calaamadaha lagu garan karo waxa kamid ah waa habeen mu'tadil ama dhaxdhaxaad ah habeen kululna ma ahan habeen qabowna ma ahan habeen dhaxdhaxaad waaye degan huduu ah xasilan waxa kale la yiraahdaa maaragtay ومارد حديث النبي كوسو أروري هبين كليلة القدر علامات كل جرنا هي كان مذا وحوي هبين كليلة القدر وحلي هذا حدقيه عركة كمان دعان وحلا ركتان مركز تبع عركة الحدقة كدعان سمان حدقها وحلي جينا القطورة سما حدقها مركز تا ودعان لكن ليلة القدر هبين حدقها عركة كمان دعان أيضا هذا بو حس ويدين مدن ليلة القدر حاجة بيكوتشر تهرت بالتحديد حاجة كوتشرتها وحال اسكوا فقسين رمضان كجرت سما sidoo kale waxa weeye nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay inay ku jirto 10 ka dambe ee ramadaanka 10 ka dambe ee ramadaanka inay ku jirto 10 kaas dambe haddana waxa la yiraahdaa waxay uga sii jirtaa habeenada tiradu is dheer tahay waxa laga wadaa habeenka 12aad 13aad 15aad 7aad iyo 9aad habeenadaas laftigooda culimadu way sii kala fadileen oo waxay yiraahdeen qaar kamid ah ay xoog sii saareen oo waxa kamid ah habeenka 12aad 7aad iyo 9aad kamid habeenadaas culimadu aad iyo aad gaar u sii saareen haddaba leelatul qadri ma waxa waajib qofku inuu 10 habeen oo ramadaanba 10 habeenba inuu saxeexano afro waajiba si uu leelatul qadri u helo muxuu ku heli karaa leelatul qadri waxa la leeyahay wuxuu ku heli karaa qofka hadii imaamka salaada cishaa uu la tukado ka bacdina taraawiixda uu la istaago taraawiixda uu la dhamaysto salaada subaxiga masaajidka uu ku soo noqdo oo masaajidka jamaacada ku tukado qofkaas waxa weeye maaragtay maxay ahayd leelatul qadrigi iyo qiyaamkii leelatul qadriga intaba waa haleelay taw marka maxaa imaanaya hadii qofka asagoo aan ka warqabin leelatul qadri buu gooyay leelatul qadrigi caawdan waa cibaadeysanay leelatul qadrigina waa waqtiga waa ku soo aad qofkina kama warqabo in leelatul qadri tahay in kale qofkaas marka waxa la leeyahay leelatul qadrigi ama ha ogaada inay tahay ama yees ogaan waxa weeye fadligii leelatul qadrka wuu helayaa fadligii leelatul qadriga qof kasta waxa marka laga rabaa
inuu ka faa'iidaysto calaamaadkaas, inuu ka faa'iidaysto, inuu wakhtigaas ka faa'iidaysto, inuu ku dadaalo mar kastaba inuu soo helo oo soo xasiliyo leylatulqadriga. marka dadka mu'miniinta waxaa laga rabaa 3 arrimood. kow waxaa laga rabaa in ay la yimaadaan wax la yidhaahdo taxari, sidii nebigu uu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam, oo ay goobaan leylatulqadrigii, raadiyaan leylatulqadriga, ay maaragtay wakhtigooda u horaan, maaragtay ku dadaalaan inay habeenkii oo dhan soo jeedaan ku soo jeedaan cibaado. waxa weeye sidoo kale waxaa laga rabaa qofka waxaa la yidhahdaa qiyaam, habeenkii leylatulqadriga iyo maalintiisaba inuu juhdiga iyo dadaalka isku si u badiyaa la rabaa. waxaa kaloo qofka mu'minka laga rabaa inuu ku ducaysto ducadii nebigu uu baray calayhi salaatu wasalaam caaisha. waxaa jirta sayyidatana caaisha ayaa nebiga weydiisay calayhi salaatu wasalaam, waxay tihi leylatulqadriga haddaan arko maxaan ku ducaystaa nebi ilaahiyow? rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, waxaad ku ducaysataa ducada macruufka oo dadka dhan ay wada yaqaaniin, duca macruufa oo dadka dhan ay wada yaqaaniin, oo masaajidda dhan dadku ay ka wada qaadaan. allaahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii. ducadaas ayaa maaragtay nebigu uu faray caaisha inay ku ducaysato leylatulqadriga, inay ku ducaysato si ay leylatulqadriga maaragtay ay uga faa'iidaysato.